السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. waxaad ku soo dhawaataan video yar oo aan kaga hadli doono insha Allah SketchUp qaabka markaad rabto gidaara inaad hool ka saarto qaabkeed u isticmaali kartid ama sida ay kuugu fududaan lahayd badanaana markaad ku cusub tahay ama aadan practice badan ku sameeyin inaad hool ka dhex saarto gidaar ay ku dhibi doonto oo tusaale ahaan imika inaan ka saaraa rabo imika oo kale inkastoo on face hadda si dhakhso la igu soo saaray laakiin badanka waxaad arki doontaa in tusaale ahaan inta daaqadan oo kale in saas oo kale kaaga dheeraato oo albaabka sida kaaga dheeraa inkastoo albaabku soo fuduyo mar walba ka dhex baxayo oo mar walba waxaad eegan doontaa tusaale ahaan offset limit kaas aad eegan doontaa laakiin waxaanu arkaynaa qaab fudud oo waxaaba kaga badbaadi doonto tusaale ahaan inta geeska soo istaagto mar koobaad waxaa muhiim ah haddii imika saad u taagan tahay oo sidan tiraado tusaale ahaan eeg waxaad arki doontaa inay gudaha yani kaasoo gashay oo daaqadaadii dheeraatay yani gidaarka thicknesskii aad sidaas extension aad ku samaysid marka taas aad uga badbaado waxaad samayn doontaa inaad inta geeska istaagto aad bush and pull soo qaadato tusaale ahaan circle-kan oo kale waxaad moodaa in daaqada okay tan circle-ka inay noo samaysnayn baad moodaa iyada aan baabiyo okay oo aan dib u sawiro okay hadday noo samaysan tahay marka waxaan samayn doonaa iyada tusaale ahaan haddaan imika xagga ka jiidisadaado exas iga noqonaysaa marka haddii aan xaggan oo kale tusaale ahaan dad advanced tahay waxaa laga yaabaa inaad xaggaas oo kale markaad aragto on face aad sii dayso ay kaaga baxdo marka laakiin haddii aad ku cusub tahay taasi ay konfici weydo ama gacantaad aynan la qabsan oo badanaa dadka daaqada marka ka saaray la qabsada qofku iskala qabsan doonaayo oo sidan buu samayn tusaale on face oo uga dhex bixi laakiin markuu arday ku cusub yahay maadaama ka naxnaxsan yahay ama xoogii wixii ku cusub yahay waxa laga yaabaa inuu shaqeyn weydo marka aad si aad ku shaqeyn doontaa dad ku cusub tahay click baad dhihi tusaale ahaan bartan baad qaban then waxaad iman doontaa linekaas yaad on edge kay ku qoran tahay waxaan jeedaa yani lineka gudaha xiga kan banaanka soo xiga ama daaqada soo xigay iyadana henkaa gudaha xiga yaad on edge marka ku saaro aad sii dayn doontaa marka waxaad arki doontaa inay kaaga bixi sidaas la mid ah tanaan practice garayno click bartaas on edge albaabka bartaas on edge dibna waxaad arkaa inay saddexdiiba kaaga baxeen tusaale ahaan haddana bal aynu ka saarno rectangle kaleeto okay rectangle dhuuban oo ilaa xaggaas ah okay dhinac ka istaag baan ku dhahay dibna bartan imo line-ka la beegsa ka banaanka okay end point-iga ama end point ha noqdo laakiin yani on edge ku soo saaro ku dadaal waxa laga yaabaa marka qaarkood mid point inuu ku soo saaro centerkaas oo kale intaad ku aadiso dib u shaqeyn maayo waxaad samayn doontaa on edge inaad tiraahdo geeska isticmaasho dibna click markaad tiraahdo inuu saa kaaga baxo taa waxay noogu dhan video yar oo kooban inuu ku arki doono ciladaha la kulma ama la kulmi kartid haddii aad weli gacanta kuu fadhiisan oo practice badan sameynin waxaanu samayn doonaa insha Allah mustaqbalka inaan soo kordhino videoyaal badan oo ka hadlaya qaabkaad waxyaabaha qaarkood yani ku dhibi karaad waxaa lin kartid iyo sida kale extensions iyo plugins kala duwan oo faa'iido leh oo SketchUp-ka lagu ladho qaabkaad isticmaaleed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.